caasinimada labada waalid dhowr arrimood markii la helo qofku caasi noqon karaa. kow waxa ay kaa rabaan waa inuusan dembi ahayn. hadday wax dembiga kaa doonayaan falaa tutichumaa bay soo geliyaan iyo inama ataacatu fi lmacruuf. marka labaadi waxay kaa dalbanayaan ama ay kaa doonayaan waa in waxaad awooddo uu yahay. waxaad awooddo ood kari karta waa inuu yahay. wax awooddaada ka baxsan tii rabbiba ama dadka waajib lagaga dhigin laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha. waxaadan awoodin awooddaada ka baxsan xaqii rabbi ugu weynaaba haddana waajib kugu noqon mid waalidna waajib kugu noqon mayso. saa darteed ma aha baarinimadu inaad waalidka dembi u gasho, xaaraan u gasho, wax loo soo xado, musuqmaasuq loo sameeyo, dad loo xumeeyo, loo dulmiyo dartii baarinimada ka mid maaha. saa darteed marka labaad wax awooddaada ood kari karta waa inuu yahay. marka saddexaad wax isagu uu kaaga baahan yahay waa inuu yahay inaan dad kale ahayn. waalidka caasi laguma noqdo qof hebel wax u tar iyo qof hebel waxaasii iyo walaalaha biil u dar iyo walaalkaabaa la siina ilaa keen in la aqbali waayo caasi laguma noqdo. waalidkuna isagaan xaq u lahayn. waalidku isagaa ku dhalay, isagaa wixii intifaacaya waxtara kugu leh. dad kale laakiin inuu u dhabar garaaca ilmaho u cadaadiyo waanuu ku leeyahay dadka waa raxim, waa qaraabo, war qaraabada xiriiri, war qaraabada xiriiri u roonow, dadka walaalaha ka warqab waaniya taluu ku leeyahay. laakiin walaalaha kuwa kaa yaryar yihiin iyo iyagaa baahan iyo waana wax ka badan waalidku xaquguma laha ilmaha, kumana qasbi karo. qasabkii haddii la diidana caq waalid ma aha. waxaa ka mida waalidku haddii uu yidhaahdo gabadhi intuu yimaado reerkii iyo ninkeedii iyo odaygeedii iyo dhismihii reerka uu farageliyana waalidku isagaa intaasoo dhan xuduudiisa tallaabay. waalidka waxa la ateecayo deen dembin ahayneed awoodee u baahan yahay waa waxa isagu naftiisa u baahan yahay wey. maanta cunnu u baahan yahay, cabitaan buu u baahan yahay, dawuu u baahan yahay, deegaan buu u baahan yahay, daryeel kaluu u baahan yahay. isagaa duruufaha baahidiisa wixii aad awooddo waa waajib. wixii aadan awoodin awooddaada ka baxsan waajib maaha. duruufaya baahida dadka kale waa wanaajin dheeraada, asaaskii caaqnimada iyo caasinimada ka mid maaha. waalidku saas darteed haddii aad idigu xaqi kugu lahaa aad ku tumato adoo kari kara ood caaqul waalideyn ama caasi aad noqotaay waxaad gelaysaa kuwaan ducadana laga aqbalin jannadana aan gelin. dhinaca kale waalidka xuquuq baa lagu leeyahay, waajibaad baa saaran oo nabigu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. ninka waxaa la yidhi arajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati. reerkaa dhan buu mas-uul ka yahay. hooyaduna raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyati. ilahay mar kale wuxuu yihi quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. sidaa adduunyada waajibka ugu saaran yahay nabigu alay slam waa kii lahaa kafaa bilmari ihman an yudayica man yaquut. dembi waxaa kuugu filan dembi kaleba haddaadan gelin dadkii nafaqadooda iyo cuntadooda iyo noloshooda waajibka kugu ahayd oo dayacdo ood meel cidlaa kaga tagto ood xilkoodii gudan weydo baaba dembi naar lagu gala kuugu filan. saa darteed waalidkana waajib baa saaran iyo xuquuq buu ilmuhu leehay. walidaalika ilmaha wax loo taro xadiid baa wuxuu aha waxaa ugu fiican wax ka fiican ma jira min xusni adabin. si fiican a u tarbiyayso adaab iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan aad barto ilmihii waxbarashadoodii, caafimaadkoodii, deegaankoodii, cunnadoodii iyo cabbitaankoodii xaqay leeyihiin wey. xaqa waalidku hadduu dayaco ama ilmuhu xaqa waalidka uu dayaca in la ysku xidho maaha. mid walba xaq baa saaran, waajib baa ilaahay saaray, kiisaa lagala xisaabtamaya. adugu haddaad xaqii waalidkaa ilaaliso isagu tiisii u ilaalin waayo haddaadan cafiin aakharay ka go'anta. adiguna haddaad tiisii ilaalin weydo aakharay kaa go'anta. qof walba waajibaad iyo xaq baa la saaray, tiisi inuu ka soo baxana waa laga doonayaa. saa darteed waalidku waxaa laga doonayaa inayn ilmaha caaq ku noqon, inayn ilmuhu xuquuqdooda dayicin, inay ilmahooda daryeelaan. waladkana waxaa laga doonayaa waalidka inayna caaq ku noqon inay ilaaliyaan.